السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبات qiimaha badan ku soo dhawaada channelkeena Zack Pro. Maanta waxaan isla eegi doonaa faaqiidada film horror ah sidoo kalena ah dhimo ama noolow ah oo lagu magacaabo The Shallows. Filimka wuxuu ku bilaabanayaa meel xeeb ah halkaasoo wiil aad u daayar oo ku ciyaarayo kubad. Wuxuu arkayaa koofiyad badbaadada madaxa oo sabeynaysa biyaha taasoo ay ku xiran tahay kaamiro. Wuxuu soo qaadayaa koofiyada wuxuuna shidayaa fiidiyowaashii ugu dambeeyay laga duuba kaamirada. Gadaashiisa waxaa ka muuqanaya safiitada loo isticmaalo sabeynta oo jaban. Kadib wuxuu sii daawanayaa muuqaaladii ku jira kaamirada wuxuu arkayaa yaxaas soo weerarayo qofkii kaamirada hayay. Kadib wuxuu la cararayaa kaamirada. Aan dib ugu laabano waxa dhacay maalin aw laba maalin ka hor. Waxaan la kulmaynaa Nancy Adams oo ah qofka leh safiitada jaban ee sabeynta loo isticmaalo. Nancy waxay u socotaa xeeb aan la garanaynin iyadoo saaran gaari aan la garanaynin dabcan sidoo kalena waxaa wada darawal aan la garanaynin. waxay beddelaysaa sawirada ku jira taleefankeeda kuwaasoo soo jeedinayo darawalka wuxuu ka weydiinayaa sawirada waxayna u sharxaysaa sawirada inay u soo dirtay hooyadeed taasoo booqasho hadda ka hor ku timid xeebtan iyada ay u socto markii iyada uurkeeda ay lahayd. kadib Nancy darawalkeeda waxaa dhexmaraya sheekooyin ku saabsan filimada. Nancy waxay darawalkeeda la wadaagaysaa in halkan ay ku sugayso saaxiibteed taasoo ay ku balansanayeen inay israacaan laakiin nasiib daro waxaa fariin kaga imaanaysa saaxiibteed taasoo ay ku sheegayso inaysan imaan karin. Nancy-na aad ayay u niijabaysaa. Nancy iyo darawalkeeda aad ayay isu fahmayaan waxaan dhexmaraya sheekooyin aad u fara badan taasoo darawalku ogaanaya in Nancy ay tahay qof shakhsiyad wanaagsan leh. waxayna imaanayaan xeeb ka mid ah xeebihii meesha ku yaalay. Nancy waxay go'aansanaysaa inay abaalmariso darawalkeeda laakiin uu ka beydiida lacagtii ay u soo bandhigtay. kadibna waxay sii wadanayaan safarkooda. ugu dambeyntii safar dheer kadib Nancy waxay imaanaysaa xeebtii ay rabtay. filashadeeda xeebtu waxay ka qurux badan tahay sida markii hore ay moodaysay. kadibna waxay iska fasaxaysaa darawalkeeda. Nancy waxay u diyaarinaysaa inay gudaha badda u dhaadhacdo. waxay gudaha u galaysaa biyaha badda isla markii ay gudaha u dhaadhacdo waxaa bilaabmaya cabsi maxaa yeelay xeebta waxaa jooga yaxaas dilaa ah. waxay arkaysaa inay xeebta la joogaan laba wiil kuwaasoo dabcan u muuqda inay yihiin laba qof oo saaxiibaha oo aad isku weyn. labada wiil waxay ku sheekaysanayaan cod aad u dheer taasoo ka yaabinaysa Nancy. sidoo kale waxay isu sheegayaan Nancy ay maqlaysaa in halkan ay ka dhowdahay jasiirad aad u qurux badan oo ku wacan dalxiiska. kadib Nancy waxay isku dayaysaa inay hareeraha fiirfiiriso iyadoo isku dayaysa bal inay arki karto waxay sheegayaan wiilashan laakiin dhammaantood waxaysan ogeyn in halkan ay ku nool yihiin yaxaasyo dilaa ah oo dad cuna halistoodana ay badan tahay. saacadeer kadib Nancy waxay dib ugu laabanaysaa xeebta sidoo kale waxay la hadlaysaa faamilkeeda. ugu horeyn waxay la hadlaysaa walaasheeda iyadoo uga warmaysa halka ay tagtay sida u qurux badan tahay iyo waxyaalo kale oo ku saabsan xeebta ay joogto. sidoo kale waxay la hadlaysaa hooyadeed oo ah qofka ka tirsan faamilkan ee markii ugu horeysay soo booqday xeebtan. daqiiqado kadibna waxaa soo wacaya aabbaheed kaasoo waramaya in loo ogolaaday kollejkii ay u gudbisay codsigii ahaa inay ku biirto maadaama ay rabto inay noqoto dhakhtarad mustaqbalka dhow. kadib markuu soo dhammaado wicitaanka faamilkeeda Nancy waxay mar kale dib ugu laabanaysaa biyaha iyadoo ku biirayso labadii wiil ee saaxiibada ahaa waxayna samaynaysaa qaabka iyagu ay samaynayaan. kaftan iyo sheeko kadib oo cabaar socday labadii wiil waxay Nancy u sheegayaan in la gaaro waqtigii ay bixi lahaayeen waxayna Nancy kaga tagayaan keligeed iyadoo joogta xeebta. durba Nancy waxaa ku bilaabanaya walwal iyo cabsi maadaama ay keligeed noqotay labadii wiil ay wehelinayeen ay ka tageen. waxay dareemaysaa in biyaha uu kula jiro noole waxayna dareemaysaa in noole uu ka gudbayo gadaasheeda. nasiib wanaag wax yar kadib waxay ogaanaysaa inaysan halis jirin noolaha gadaasheeda ka gudbayana uu yahay dolphins kuwaasoo aanan lahayn wax dhibaato ah. kadib waxay kor dheer ka arkaysaa xayawaan ku dhex baktiyey badda dhexdeeda. kadib waxay xawl u wadaysaa safiitadeeda waxayna dul tegaysaa xayawaankii baktiyey kaasoo ah nibiri aad u weyn oo ay ku yaalaan dhaawacyo aad u daran. Nancy waxay dib ogaanaysaa in biyaha uu ku jiro libaxbadeed nafsadeedana ay halis ku jirto. waxyar kadib libaxbadeedka wuxuu dusha ka marayaa Nancyna waxay dareemaysaa dhaqdhaqaaqaas iyadoo dareemaysa cabsi badan. Nancy markaan waxaa waajib ku ah inay nafsadeeda la baxsato waxaana soo cirsanaya libaxbadeedka. nasiib daro wuxuu kaga imaanayaa dhinac. Nancyna waxay ka dhacaysaa boodhkii ee saarneed waxayna ku dhacaysaa biyaha. Nancy markay biyaha ku dhacdo waxay kusii duldhacaysaa dhagaxyada badda kuwaasoo dhaawacyo fudud gaarsiinayo
isla markii ay Nancy dib ugu soo laabato boodhkeeda waxaa jiidanaya yaxaaska, waxayna mar kale ka badbaadaysaa yaxaaska inkastoo ay gaareen dhaawacyo aad u daran oo ay ugu daran tahay dhaawac ka haleelay lugteeda. Nancy iyadoo uu soo cirsanayo yaxaaska si ay uga badbaado waxay dul fuulaysaa nibirigii baktiyey ee dhex yaalay badda. Nancy waxay dareemaysaa xanuun aad u badan waxayna bilaabaysaa inay qayliso sidoo kalena ay cabaado. Waxay dusha sare ka arkaysaa qof ka sii kaxaysanaya gaarigiisa xeebta markii uu qaylisana ma maqlaayo. yaxaaskina wuxuu bilaabayaa inuu ku dul meeraysto halkii ay saarneed. Libaxbadaadka wuxuu ku khasban yahay inuu wax un sameeyo wuxuuna bilaabayaa inuu jiido nibirigii ee dul saarneed Nancy. Maadaama markaa Nancy aysan waxba samayn karin, waxay isku dayaysaa inay fikirto sidoo kalena ay keento qorshe ay ku badbaado. Waxay haysataa laba options. Labadaas option oo kale ah kow inay dabaal ku gaarto bir dheer oo ku dhex samaysan badda dhexdeeda si ay uga badbaado, iyo number 2 dhagax jamal ah oo ku dhex yaala badda dhexdeeda kaasoo sidoo kalena u dhow. iyadoo wada qorshihii arrintan ku samayn lahayd waxaa hal mar nibirigii ee dul saarneed badda ku darayo libaxbadeedkii, iyadan waxay ku boodaysaa biyaha. Nancy markaan waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay ku gaari lahayd dhagaxaas. yaxaaskina wuxuu bilaabayaa inuu soo cirsado. waxay ku guulaysanaysaa inay dul fuulsho dhagaxii adkaa ee jamal ka samaysnaa, halkii libaxbadeedkii uu bilaabaya inuu ku dul meeraysto dhagaxii ay dul fuushay Nancy. kadib Nancy waxay bilaabaysaa inay tuliin kumeel gaara ku samaysa dhaawaceeda, waxayna u adeegsanaysaa dahabkii iyada u xirnaa. dharkeedii dabaasha ayaana u isticmaalaysaa inay dhaawaceeda ku xirto. waxaa ku soo biiraya shimbir sideeda oo kale u dhaawacan, waxayna labadooda habeenkaas ku kharash garaynayaan dhagaxaas dushiisa. Nancy cidlada iyo caawin la'aanta waxaa ugu darsamayso dhaxan daran oo ku qabsanaysa dhagaxaas dushiisa, waxayna bilaabaysaa labiskeedii dabaasha inay dhaxanta iskaga difaacdo. waxayna danta ku khasbaysaa inay cunto waxaysan weligeed cunin kuwaasoo ah cayayaanada yar ee badda laga helo, wayna ku guuldaraysanaysaa inay luqdo maadaama aysan u baran markii hore. Nancy markaan waxay dusha sare ka arkaysaa boodhkeedii oo sabaynayo meel aanan ka fogeyn, waxayna bilaabaysaa inay biyaha ku dhex dhuumato oo ay gaarto boodhkeeda, laakiin waxay durba arkaysaa yaxaaskii oo ku soo socdo, waxayna dib ugu soo laabanaysaa dhagaxeedii. markaa Nancy waxay dusha sare ka arkaysaa qof cabsan oo dhex jiifa bacaadka xeebta. waxay bilaabaysaa inay u qayliso si ay u caawiyo. nasiib wanaag ninka wuxuu maqlayaa caawinta iyo qaylada Nancy iyo halka ay joogto, wuxuuna bilaabayaa inuu soo aado xagga iyo biyaha, laakiin nasiib daro wuxuu ku mashquulayaa boodhkii ay lahayd Nancy. wuxuu soo galayaa biyaha. Nancy waxay bilaabaysaa inay uga digto oo ka joogsado soo gelitaanka uu soo gelaya biyaha. qadar yar kadib yaxaaskii gaajaysnaa ayaa laba cad ka kala dhigayo ninkii cabsanaa. Nancy waxaa ku dhacayo rajabeel iyo quus. subaxda xigta Nancy waxaa u buuxsamay 6 saacadood oo caawin la'aan ah, sidoo kalena ay go'doon ku tahay dhagaxan dushiisa. nasiib wanaag waxaa soo laabanayo labadii wiil oo ay markii hore kula kulantay xeebta. waxay uga digaysaa inay gudaha u soo galaan biyaha, laakiin iyagoo qoslaya ayay damcayaan inay soo aadaan xaggaas iyo dhinaceeda. waxayna labada wiil ku guuldaraysanayaan inay fahmaan digniinta ay u muujinaysa Nancy, waxaana soo weerarayo libaxbadeedkii oo kala jarayo mid ka mid ah labada wiil, halka midkii kalena uu soo cararayo dhankaas ee Nancy si uu u badbaado. Nancy waxay wiilka siinaysaa gacan si ay ugu soo jiido dhankaas iyo dhagax ay dul saaran tahay, laakiin nasiib daro waxaa mar kale soo weeraraya libaxbadeedka, wuxuuna la gelayaa biyaha. Nancy oo keligeed ah keliyana uu la joogo shimbirkii waxaa galaysa naxariis bini'aadanimo. waxay bilaabaysaa inay shimbirka ka hagaajiso garabka uu ka dhaawacan yahay. Nancy weli kama quusan nolosha, waxayna diyaar u tahay inay samayso wax walba ay ku badbaadi karto. waxay arkaysaa koofi ay ku xiran tahay kaamira oo sabaynaysa biyaha. waxay go'aan ku gaaraysaa sidii ay ku heli lahayd koofidaas, sidoo kalena ay u qayaani lahayd yaxaasbadeedkan ku dul meeraysanayo. Nancy waxay u kurgalaysaa wareeg walba uu sameeyo libaxbadeedka, waxayna ku xisaabsanaysaa saacaddeeda si ay uga faa'iidaysato intuu maqan yahay oo ay tallaabo u qaado. Nancy marka uu ka fogaado yaxaasbadeedka uuna dhammaado waqtigii ay tirsanaysay, waxay ku boodaysaa biyaha si ay u soo qabsato koofidii kaamirada ku xirnayd. laakiin qadar yar kadib Nancy waxaa soo weeraraya libaxbadeedka, waxayna ku dhacaysaa mool ku yaala gunta hoose ee badda, waxayna furaysaa kaamiradeeda. Nancy waxyaabaha ugu horeeya ay ka fahmayso libaxbadeedku wuxuu yahay inuu aad uga fogaanayo geedaha qodxaha leh ee ku dhex yaala badda iyo inay ku taalo fallaar oo uu dhaawacan yahay yaxaasbadeedka. Nancy waxay kaamirada u isticmaalaysaa inay ku duubto muuqaaladaas oo ay ku dalbanaysa caawin in case qofkii helo kaamirada, iyo sidoo kale waxay fariin u diraysaa dadkii ay jecleed, yacni familkeeda iyo dadkii kale ee asxaabta ay ahaayeen. hadda Nancy qorsheeda weyn wuxuu yahay sidii ay ku gaari lahayd dhismahaas ka samaysan birta ee ku dhex yaala badda. inkastoo uu cabaar u jiro,
haddana waxay ku dadaalaysaa qorshihii ay ku gaari lahayd dhismahaas. Nancy waxay badbaadada kor masiinaysaa badbaadada shimbirkan, waxayna boodhkii jabnaa dul saaraysaa shimbirka, waxayna dib ugu celinaysaa badda. Laakiin waxay dareemaysaa sawaxankaasoo ah in jellyfishkii ku jiray badda ay u soo baxeen banaanka. Marka hore waxay ka xanaaqaysaa waxa ay samaynayaan jellyfishyadan, laakiin waxay ogaanaysaa inuu jiro jaanis ay ku badbaadi karto oo ay samaynayaan jellyfishyadan. Iyo xasbadaadka waxaa soo jiidanayso qaylada ay samaynayaan jellyfishyada, wuxuuna u dhaqaaqa xaggaas iyo jellyfishyada. Durbaba Nancy waxay ku boodaysaa biyaha si ay u gaarto halkii ay rabtay, waxayna dhex galaysaa jellyfishyadii, waxaana soo weerarayo mar kale libaax-badeedka. Laakiin jellyfishyadii ay garabka ka soo raastay Nancy iyaga ayaa bilaabaya inay weeraraan Nancy, waxayna ka qaniinayaan garabka. Kadib Nancy waxay u dabaalanaysaa xaggaas iyo dhismihii ka samaysnaa birta, inkastoo uu daba joogo libaax-badeedka. Waxay si nabad leh u gaaraysaa goobtii ay rabtay, laakiin nasiib xumo waxay ka soo dhacaysaa dhismaha iyadoo gacanta ku wadato birtaasoo isticmaalayso inay ku weerarto libaax-badeedka. Libaax-badeedkana wuxuu culayskiisa isugu geynaya xooggiisa sidii uu ku ridi lahaa dhismaha birta ka samaysan ay saaran tahay Nancy marka ay korto qaybta sare ee dhismaha waxay dusha sare ka arkaysaa markab, waxayna raadin u galaysaa bistoolada bularka si ay caawini garab u weydiisato. Laakiin inta badan rasaastii ay ku ridi lahayd waxay kaga dhacayaan biyaha marka laga reebo hal xabo oo ay si dhib badan kusoo qabatay. Marka ay rido halkii xabo ay riisatay wuxuu noqonayaa mid aan meel dheer gaarayn maadaama uu noqday mid qoyan oo ay biyaha badda ay gaareen. Nancy oo aan isdhiimin noloshana rajo ka leh waxay raadin u galaysaa rasaastii kaga dhacday biyaha. Nasiib wanaag waxay helaysaa mid ka mid a rasaastii, waxayna u ridaysaa si wanaagsan, inkastoo markabkii ay u riday uu goor hore tegey. Nancy markaan xaaladdu way ku xun tahay maadaama markabkii ay ku tashanaysay caawintan ay ka filaysay oo ka tegay, sidoo kalena aysan haysan cid kale oo caawisa. Laakiin waxaa jira war aad u wanaagsan. Wiilkii yaraa ee helay koofidii ay ku xirnayd kaamirada wuxuu u daawaday muuqaaladii ay iska duubtay Nancy, sidoo kalena ay ku dalbanaysay caawinta. Dabcan waxaa jirta rajo, laakiin Nancy ma oga arrintan. Nancy markaan waxaa waajib ku ah inaysan quusan. Yarkii yaraana wuxuu sii wadaa daawashada muuqaaladii ku jiray kaamirada, halka libaax-badeedka uu sii wado weerarkii ku hayay Nancy. Wuxuu si xoog badan ugu dhacaa dhismihii ay saarneyd Nancy, taasoo sababaysa inuu go'o mid ka mid a silsiladii ku xirnaa dhismaha. Kadib Nancy waxay go'aan gaaraysaa in bularka ay u isticmaasho libaax-badeedka naftirkiisa, waxayna bilaabaysaa inay toogato, waxaana gaaraya dhaawac. Mar kale libaax-badeedka wuxuu soo qaadaa weerar ragaal celis ah, taasoo sababaysa in dhismaha uu ku taagnaado kaliya hal silis, taasoo khatar gelinaysa Nancy inay ka dhacdaba dhismaha. Laakiin waxay manage garaynaysaa inay sar u fuusho dhismaha, waxayna mar kale tooganay libaax-badeedka. Libaax-badeedkana waxaa qabsanaya dab isagoo oo dhan. Kadib libaax-badeedka wuxuu ka soo boodaa goobtii uu dab ka saameeyey isagoo gunta hoose ee badda galayo, kadibna wuxuu weerar ku soo qaadaa dhismihii ay saarneyd Nancy. Xoogga iyo awoodda uu adeegsaday darteed dhismihii uu burburaa, sidoo kale waxaa go'ayay siliskii labaad ee celinayay dhismaha. Nancyna waxay ku dhacaysaa biyaha. Nancy waxay dib ugu soo laabanaysaa dhismihii burburay si ay difaac uga dhigato oo iga badbaado libaax-badeedka ku agmeeraysanayo. Libaax-badeedka wuxuu mar kale weerar baan ku qaadaa dhismihii isagoo burburinayo birihii ku xirnaa dhismaha. Nancy waxay biyaha guntooda ka arkaysaa birtii ay ku xirnayd siliskii celinayay dhismaha oo leh biro halis ah oo uu ku dhiman karo yaxaaska. Nancy waxay ka fikiraysaa sidii yaxaas-badeedka ay ku goyn lahayd gunta hoose ee badda. Waxay ku boodaysaa biyaha, waxayna qabsanaysaa silis ka mid ah silisyadii ku xirnaa dhismaha, halka yaxaas-badeedka uu weli la dagaalamayo birihii. Waxay si xirfadaysan u qabsanaysaa siliska. Libaax-badeedkana wuxuu arkaa dhaqdhaqaaqa Nancy ay samaynayso, wuxuuna bilaabaa inuu ka soo daba cararo. Laakiin yaxaas-badeedka ma oga tan inay tahay khayaanadii ku dhiman lahaa, wuxuuna si kalsooni leh kaga soo dabagelayaa Nancy. Waxyar kadibna wuxuu afkishanayaa birihii ku samaysnaa gunta hoose ee badda. Nancyna waxay ka guulaysanaysaa yaxaas-badeedka. Waxyar kadib wiilkii yaraa wuxuu la soo noqonayaa aabihiis qof kale ma ah, waa darawalkii Nancy keenay markii hore xeebtan. Darawalka wuxuu banaanka u soo saarayaa Nancyna waxyar kadib waxay helaysaa miirkeeda. Sidoo kale halkaas waxaa jooga shimbirkii ay markii hore badbaadisay Nancy. Muddo kadib Nancy waxay dib ugu soo laabanaysaa xeebta iyadoo dhaawacyadii hore ay ku yaalaan, waxaana la socda sidoo kale walaasheed. Markana Nancy waa dhakhtarad buuxda. Nancy iyo walaasheed ka yarna waxaa u bilaabmayo dalxiis qurux badan. Filimkan wuxuu dhammaanaa iyagoo aad u faraxsan oo qoslayo. Haddii aad ka heshay filimkan, fadlan like saar, sidoo kalena subscribe saar, una sii shargaray saaxiibada si ay noogu soo biiraan.